السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. meel kastoo naga daawadaysan daawadiil halkani waa Sima TV waxaanad ku soo dhawaataan qodobada wararkeena ugu door corona. Xuska maalinta haweenka adduunka waxaynu ku xuseynaa inaan isgarab taagno haweenkii ka soo barakacay galbeedka City. Marwo Ubax Cabdiraxmaan wasiir ku xigeenka xafiiska arrimaha haweenka iyo carruurta ee dowladda deegaanka Soomaalida ayaa sidaas tiri wadamo badan oo Carbeed iyo kuwa Islaamiga oo ka mid yihiin Sacuudiga, Qatar, Kuwait, Bahrain iyo Masar ayaa ku dhawaaqay in maalinta koobaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan ay noqon doonto maalinta Khamiista. qodobada iyo qodobo kale aad ku maqli doontiin hadda waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan. Watays ku soo noqon wanaagsan qodobka ugu horeeya haddii aan soo qabto. Xuska maalinta haweenka adduunka ayaa waxaan ku xuseynaa isgarab taagga haweenka ka soo barakacay galbeedka City. Marwo Ubax Cabdiraxmaan wasiir ku xigeenka xafiiska arrimaha haweenka iyo carruurta dowladda deegaanka Soomaalida ayaa sidaas tiri. Falada warkaasi aan ku soo dhawaan. Xuska maalinta haweenka adduunka ayaa waxaynu ku xuseynaa isgarab taagga aan isgarab taagayna haweenka ka soo barakacay galbeedka City. Marwo Ubax Cabdiraxmaan wasiir ku xigeenka xafiiska arrimaha haweenka iyo carruurta dowladda deegaanka Soomaalida ayaa sidaas tiri. Xuska maalinta haweenka adduunka ee March 8 ayaa dunida laga xusay markii 112aad halka markii 74aad laga xusay deegaanka iyo waliba dalka Itoobiya. geedi socodka haweenka ayaa lagu soo hadal qaaday kulankaasi heerarka ay ka gaadheen aqoonta iyo siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo waliba dhaqanka wanaagsan gaar ahaan haweenka ku sugan dowladda deegaanka Soomaalida. waxayna sheegeen inay deeq raashin ay gaarsiiyeen haweenka ka soo barakacay goobihii canfarta ay iyadu ku dagaashay. waxa ay sheegeen in lagu hooga ay ku tageen cusbuli isla markaana maalinta March 8 ay isgarab taagayaan dadka soo barakacay ay ku xusi doonaan. waxaana hadaladoodii ka mid ahaa sida tan. maalinkan waxaa loogu magac daray xuska haweenweynaha adduunka maalinka caalamiga ee March 8 loo asteeyay. maalinkani waa maalin runtii qaali ah iskama imanin fursadahan faraha badan ay maanta haweenweynaha adduunku haystaan ma aysan jirin. waa maalin dhib badan loo maray, waa maalin halgan badanna loo maray. dhammaan haweenweynaha adduunkuna inay ku xaqiijiyaan fursadaha aasaasiga ah ee adduunka ka jira, hadday noqoto waxbarasho, hadday noqoto dhanka siyaasadda iyo hadday noqoto dhanka arrimaha bulshadaba, waa mid ay hadafkoodii ku gaadheen. waxaan maxay ahayd isla qorsheynay inaanu caawimaad gaarsiino walaalaheena soo dhibaatooday ee barakacay galbeedka City. ay u badan yihiin haween iyo carruur. hogaaminta halkan fadhidana ay lugahooda ugu tageen la tagay galbeedka City qabaleega Casbuli. waxaa la soo arkay dad tabaalaysan, rafaadsan, dhibaataysan, soo barakacay. runtii caawimaadaas xafiiska arrimaha haweenka oo kaashanaya dhammaan mas'uuliyiinta deegaanka ee gabdhaha iyo kuwa raggaaba waxaan isla qaadanay in aan abaabul samayno. xafiiskanagan abaabulkiina noogu qabsoomay. kadib markaan abaabulkii ku guuleysanay waxaan ururinay lacag fundraising ayaan samaynay. kadib lacagtii wixii ay noo gaadhay ayaanu ku gaarsiinay dadkii barakac ahaa ee haweenka iyo carruurta ahaa. wadamo badan oo Carbeed iyo kuwa Islaamiga ay ka mid yihiin Sacuudiga, Qatar, Kuwait, Bahrain, Imaaraat iyo Masar ayaa ku dhawaaqay in maalinta koobaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan ay noqon doonto maalinta Khamiista. Zainab iyo falada warkaasi inoo soo koobaysa. wadamo badan oo Carbeed iyo kuwa Islaamiga ah ay ka mid yihiin Sacuudiga, Qatar, Kuwait, Bahrain, Emirateska, Iran, Iraq, Falastiin iyo Masar ayaa ku dhawaaqay in maalinta koobaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan ay noqon doonto maalinta Khamiista ah ilaa 23 March. waxayna maxkamadda sare ee Sacuudigu sheegtay in bari oo Arbaca oo ku beegan 22 March 2023 ay tahay dhamaystirka 30 bisha Shabcaan. Khamiistana ay tahay bilowga bisha Ramadaan ee 1444. wakaaladda wararka ee Emirateska Carabta ayaa sidoo kale sheegtay in maalinta bari ah la dhamaystirayo bisha Shabcaan, isla markaasina maalinta Khamiista ay tahay maalinta koowaad ee bisha Ramadaan kadib markii la arki waayay bisha. dhanka kale muftiga Mohammed Hussein ayaa war uu sii daayay TV-ga rasmiga ee Falastiin waxa uu ku sheegay in aan la arki karin bisha Ramadaan fiidnimadii Salaasada dhulka Falastiin, in Arbacada ay tahay dhamaystirka bisha Shabcaan, Khamiistuna ay tahay maalinta koowaad ee bisha Ramadaan. Iraq,
awqaafta sunniga ayaa ku dhawaaqday in khamiista ay tahay maalinta koowaad ee bisha ramadaan iyada oo bisha aan la arki karin. sidoo kale wakaalada wararka ee Syria ee Sena oo xiganaysa golaha cilmiga garsoorka ee wasaaradda awqaafta ayaa sheegtay in khamiista ay tahay maalinta koowaad ee bisha ramadaan kadib markii la arki waayay bisha. Lubnaan, Suudaan, Masar iyo Iiraan ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in khamiista ay tahay maalinta koowaad ee bisha Ramadaan Mubaarak. Dowladda Itoobiya ayaa ku gacan saartay warbixin ka soo baxday Mareykanka oo ku eedeynaysa ciidamada dowladda kuwa gobolka Amxaarada iyo ciidamada Eritrea isla markaana inay dambiyo ka geysteen muddadii 2 sano ahayd ee dagaalku ka socday halkaasi. Falada warkaasi iyo Sharmaake. dowladda Itoobiya ayaa ku gacan saydhay warbixin ka soo baxday dalkaasi Mareykanka oo ku eedeysan ciidamada dowladda kuwa gobolka Axmaarada iyo ciidamada Eritrea isla markaana ay dambiyo dagaal geysteen muddadii 2 sano ahayd ee uu dagaalku ka socday deegaankaasi Tigrayga. wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya waxay warbixintan Mareykanka ku tilmaantay mid la soo xushay oo daandaansi ah oo kala qaybsanaan horseedi karta si khaldanna loola taliyay dalkaasi Mareykanka. Itoobiya waxay warbixintu ay ku sheegtay mid xaq darro ah. isniintii dhaweydaynu ka soo gudubnay xogayaha arrimaha dibadda ee dalkaasi Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in ciidamada dalka Itoobiya, Eritrea iyo Axmaarada ay geysteen dambiyo ka dhan ah bini'aadantinimada balse wax eedayn ah muusan jeedin kooxdaasi jabhadda ee TPLF. Mr. Anthony Blinken ayaa booqashadiisii ugu horeysay ku tagay dalka Itoobiya toddobaadkii hore tan iyo markii heshiis nabadeed ay kala saxiixdeen bishii November ee sanadkii hore dowladda federaalka iyo kuwa Tigrayga. guud ahaan warkeed kala socoteen Sima TV intaas aynu naga dhanyaantaan warkiisa ku kulmayno nool kulantii. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.